السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada daawadayaal qiimaha iyo qadarinta mudanow channelkeena iftiinka nolosha. waxa uu channelkeena inta badan aan kaga hadalnaa wixii anfici kara ummadayda iyo dadkayga. waxaan inta badan diiradda ku saaraa maxaa ugu muhiimsan ee maanta la doonayaa in qofku uu muhiim u yahay. sida anoo ka duulaya waxaan rabaa inaan muuqaalka kan taxane idin ballan qaado, taxane ku saabsan sidee lagu geli karaa wadamada Canada, Australia, Mareykanka iyo Finland, New Zealand iyo wadanka Sweden. muuqaal walba dhowr muuqaal oo kala duwan ayaan kaga hadli doonaa isagoo faahfaahsan. wadan walba waxa uu ku fudud yahay qaababka loo maro, shuruuduhu leeyahay, waxyaabahaas oo dhan baan idin soo bandhigi doonaa. haddaan guda galo muuqaalkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay sidee ku geli kartaa wadanka Australia. shuruudaha lagaga baahan yahay muxuu yahay, qofka ugu muhiimsan ee geli kara ee si fudud ku geli kara waa kuma. horta shuruudda koowaad waxaa weeye qofku inuu dukumentiyadii looga baahnaa sii diyaarsado. midda kale waxaa weeye dhowr qaybood baa lagu kala apply garayn karaa ama dacwadda loo geli karaa. dacwadda waxaad u geli kartaa lambarka koowaad inaad qof faamilkaaga kuu jooga oo kuu dacwooda, sida aabbaha, hooyada, xaaskaaga ama walaalka ama walaasha. intaa haddii la waayo waxaa gelaysaa qodobka labaad oo ah qof wax bartay ama qof master ama degree haysta oo engineering u badan. mostly engineeringka la doortaa, way aad u qaataan engineeringka, IT engineeringka oo dhan, civil engineering, electrical, petroleum, waxaas oo dhan waa la qaataa. sidoo kale waxaa la qaataa medicineka, waxaa la qaataa economic, waxaa la qaataa adigu faculty aad u fara badan sida business management, master ama degree. waxaas oo dhan waad apply garayn kartaa iyadoo aad easy u tahay. linkiyadana hoos baan idiin soo dhigi doonaa haddii ilaahay yiraahdo. haddaan hadda ka gaadhsiin waayana muuqaalada dambe insha Allah idin ku soo dari doonaa. sidoo kale qofku haddii uu faamilkiisa u joogo waxa ugu fudud uu samayn karaa waxaa weeye inuu qofkaas u dacwoodo. dacwadaas qofkaas waxaa laga rabaa inuusan joogin wadankiisa, uu ka baxay oo wadan kale jooga, magangalyo ku jooga, ama UN card haysto ama yuusan haysan. waxa qofka ugu fudud loo samayn karaa UN card. hadduusan haysan taasina way fududahay. tan kale aan idiin sheegi doono waxaa ka mid ah sidoo kale qofku inuu yahay qof qaxooti ah oo san haysan qof family ah oo meesha u jooga. sidoo kale isaguna wuu tegi karaa oo card UN haysto oo qaxooti wadan kale ka yahay. sidoo kale qofkaasi mutadawacnimo u kaxaynaya, sponsor ahaan u kaxaynaya. taasina way fududahay. haddaba ardayda engineeringka ah ama ardayda inta badan facultiyada aadka muhiimka u ah haysta sidee bay ku tegi karaan? waxay ku tegi karaan inay apply gareeyaan website-ada dowladda Australia leedahay. isaga inta badan muhiimadda saaraa inuu dadka immigrationka ama dadka migrationka safaradaas u fududeeya. sidoo kale dacwaddana u fududeeya. haddaad tahay qof ka weyn 18. sidoo kale lehna xirfado kala duwan waxaa kuu fudud inaad wadanka geli kartid. sidoo kale hadduu qof faamilkaaga aad joogo si fudud ayaad ku tegi kartaa. waxaa lagu wadayaa programka ama dacwadda in ku dhow sanadiyo ban 2 sano 6 bilood. hadba adigu sidaa nasiibkaaga weeye.